waa qofkii ugu horreeyay ee adeegsada qalin si uu wax u qoro. Sidoo kale waa qofkii ugu horreeyay ee bilaaba tolidda dharka. Waa nebigii saddexaad ee Alle subxaanahu wa tacaala u soo diray bani aadamka. Nebi Aadam iyo Nebi Shiith gadaashood wuxuu ku soo gaaray geerida Nebi Aadam calayhi salaam oo ay ka dhiman tahay ku dhowaad 308 sano. Waxaynu u jeednaa Nebiyullaahi Idriis calayhi salaam. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta aynu ku eegi doonaa taariikhda uu lahaa Nebiyullaahi Idriis calayhi salaam. sida laga soo xigtay Ibn Kathiir waxa uu yiri Nebi Idriis calayhi salaam abtirkiisii waxa uu galaa Shiith oo ah ilma Aadam. Shiith waxa uu ka yaryahay Qaabiil iyo Haabiil qofka ku xiga weeyaan. Haddii aynu sheegno abtirsiga Nebi Idriis calayhi salaam waa Idriis ibnu Yaarat ibnu Mahlaa'iil ibnu Khayraan ibnu Anusha ibnu Shiith ibnu Aadam calayhi salaam. Nebi Aadam calayhi salaam intii uusan dhiman ka hor ayuu reerka wuxuu ku dhahay waxaan talada iyo maamulka ugu dardaarmayaa Shiith oo ahaa kan ugu weyn xaafadda xilligaasida. Maxaa yeelay Qaabiil markii uu dilay walaalkii Haabiil ayuu iskaga tagay reerka. waxaan reerka markaas u weynaa Shiith oo dhaxlay Nebiyullaahi Aadam calayhi salaam gadaashiis oo reerka ugu baaqayay cibaadada Alle subxaanahu wa tacaala iyo caabudidiisa. Kadib Nebi Aadam calayhi salaam markii uu dhintay sidii ayuu kula wareegay talada xaafadda. Shiith intii uu noolaa ayuu dadka ugu cijiray cibaadada Alle subxaanahu wa tacaala. Markii geerida ay ku soo xadirtay ayuu u dardaarmay wiilkiisa Anusha. isaguna markii uu geerida ku soo xadirtay ayuu u dardaarmay wiilkiisa Khayraan. isaguna markii uu reerka intii u hayay kadib ayuu isaguna wuxuu u dardaarmay Mahlaa'iil waa abowga Nebi Idriis calayhi salaam. sida ay sheegaan mufassiriinta qaar Mahlaa'iil waxa uu ahaa boqor weyn oo u taliya reerka. xitaa waxaa la sheegaa inuu aasaasay magaalada loo yaqaano hadda Baabil oo ku taasha dalka Ciraaq. sidoo kale waa qofkii ugu horreeyay ee bilaabay in dadku ay samaystaan nolol ka duwan nolosha baadiyaha. Mahlaa'iil markii ay ku timid geerida ayuu u dardaarmay wiilkiisa Yaarat. isaguna markii ay ku timid geerida ayuu u dardaarmay wiilkiisa Idriis. dacwadii ka soo bilaabatay Nebiyullaahi Aadam ayaa markii soo gaartay Nebi Idriis. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa Nebi Idriis u doortay nebigii ugu horreeyay markii laga soo tago Nebi Aadam. Nebi Idriis wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee qalin wax ku qoray. sidoo kale Ibn Kathiir ayaa laga soo wariyay isaguna inuu yiri Nebi Aadam markii ay geerida ku soo xaadirtay ayuu iskugu wacay caruurtiisii iyo kuwii ka farcamay iyagoo tiradooda gaaraysa ilaa 400,000 oo qof. wuxuu u dardaarmay in Alle subxaanahu wa tacaala ay kaligiis ay caabudaan sidoo kalena iska ilaaliyaan shaydaanka oo ah cadowga bani aadamka. Nebiyullaahi Idriis waxa uu dhashay 380 sano ka hor geerida Nebi Aadam. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa Nebi Idriis u soo diray malag si uu u soo qaado uuna u geeyo samada afaraad. Nebi Idriis calayhi salaam markii la keenay samadii afaraad wuxuu la kulmay malakul mowt ayaa yiri anigu waxaa soo diray Alle subxaanahu wa tacaala waxaana la ii soo diray in adigu nafta aan ka qaado. kadib geeridii Nebi Idriis calayhi salaam dadkii ayaa ku kacay fasahaad heer waxa ay gaareen inay caabudaan sanamyo ilaa Alle subxaanahu wa tacaala uu u soo diray Nebiyullaahi Nuux calayhi salaam. aynu kaga hadli doonaa qisadiisa muuqaalka soo socda. muuqaalkani intan ayaynu ku joojinaynaa. inta aynu ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.